السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله waxaan rabaa sheeko yar inaan kula wadaag. Waxaan tareen ku kulannay gabar cadaan ah oo Ingiriis ah Muslim ah marka tareenka badanaa waa halaal dadku u fariistaan ninkii wadankan Ingiriiska badanaa caalamka saas oo qofku wuxuu dayaa inuu qof kale la soo fariisano marka boorsi wax baa la saartaa markaan soo galay kursigan fariisay kursi kale boorsaan saartay si qof ay la soo fariisanin gabadhii marka meesha soo gashay way martay way aragtay kadib aanay weydiisatay kursiga mataqaana ma soo fariisan karaa meelihii kale oo ka soo carartay marka qof xijaaban oo muslim ah oo cad oo indhihiisa blue yihiin waa shib waa ka aamusay marka cabaar marka tareenka socda iska sheekaysanay marka waxay ugu dhahday Soomaali baan tahay waa haada Soomaali ahay marka waxay ugu dhahday aniga odagayga Soomaali ما شاء الله مركا وحنا دايما درتي مسلم تجور ما مسلم تواسك الشكل سنة وهاي الشكل مركا إن جامعة مركا ديجانيس إسلامتي قبل مسلمين إلى شركة رينجر تجوري قبلها رقم كود يتبع عدد مركا أركتي دين الإسلام كقاعدة إنه إسلامين إنك قبل درتي سعد لكن واحد هذا مركان برتي وحنكون برتي هذا جامعة نلاد وناكسن aad iga caawiyay diinta su'aalo badan oo confusion ka qaada aan weydiinin dhalinyaro ahlu diin kadib waxaan go'aansaday dhahday maadaama family problem iyo dhibaatooyin aan galay oo cidayda ay welcome fiican ii sameyn weysay dagaal badan iyo colaad iyo dhibaato ay tusiyeen markaan islaam noqday inaan iska guursado marka sawirka marka waxa ii soo galay dhahday wiilkan inaan guursado maadaama shuruudihii aan rabay qof diinta i baraayo qof wanaagsan wax dhan ii soo buuxiyay marka isguursanay oo sanada isqabnay xiriirka waxa soo ciiday aniga hooyaday marka hooyaday sheekaysanay dhahday marka hooyaday waxay ka qabtay cuqdad dadka muslimiinta aad waana dadka muslimiinta aad u nacib marka waxay aragtay dhahday hooyaday anoo wato kaararkiisa bangiga markaas waxay dhahday maxaa ku dhiibay kaararkiisa waxaan ku dhahay dhahday hooy aniga ninkayga waxba kala manihin asaga shaqeeyo ana hadda ilmaan la joogaa hal cunuga haystaan marka waxay dhahday kaarkaana waa iska isticmaalaa waxaan rabaa mariyaa hooyadii way aamini weysay dhahday arrintan waxay dhahday macquul ma aha markii annaga markaan yaryareen waxay dhahday hooyadii aabbahay way kala qaybsan jireen hooyadana way shaqayn jirtay aabbayna way shaqayn jiray ijaarka waa inay qaybteeda bixisaa korontada waa inay qaybteeda bixisaa markii la soo adeega waa inay qaybteeda bixisaa haddii aabbahay waxay dhahday gaari lahay markuu hooyada u soo adeegayo darteeda u baxayo waa in shidaalka ay ku shubtaa ida baawurka laakiin waxay dhahday hooyada markaan u sheegay muslimka dhaqankaas ma laha ninkan Soomaaliga qaba dhaqankaas ma laha familka wixii soo galo waa wada leenahay kaarkiisa waa kaarkeyga waa kiisa ima qasbo inaan shaqo aado wuxuu dhahaa inta cunuga 2 sano nooga gaarayo joog shaqo aadin marka hooyada waxay dhahday aad u jeclaatay kadib waxay bilowday in iyadana diinta islaamka soo jeclaato wax badan aqriso mataqaana xiriir fiican la sameeyso week kasta guriga noogu imaato marka ugu ambassador tahay safiir waxa tahay muslimiinta u fadhiyo dhulkan gaalada hadii wanaag laga arko millions islaami kartaa hadii xumaan laga arkana millions ka carreysa islaam dadkan waxa lagu koriyaa nacabka islaamka waxa loo sheegaa dadkan inay yihiin dad liito dad تخلف أو دبوا دعي ضد الناجح هدلو ضد متقانا لكن مرك يجورسان نين إسلام أما حتى حرير الأحمر أو هنقول إهن أو متقانا أما جامعة ده وذا دكتان يقف كان وناجيس أركته وحلاقي أبا يعني فكرة كلا قاعدته مرك هاي الماب ولقى سفير كإسلام كأوفدياتي قف كستو وناجي هذا وهو يهي علامات ضد كمسلمين إنه وناكسيين كرهان Soomaalida هذا الله أمانة رجع Soomaalida بقول هذا الأمانة دمر كان سوى كلا لكن رجع أمانته بدنا رجع وحلقوا أمانة تكسيلية أنا قد وحلا الشقية مدام ملعب فضلك الشقية قبل بدنا كشقية مرك تكسيلية كشقية نايان حيدا أن ممكن Soomaalida وفي عن سؤالكم ويديناي كمر دبايو متقانا هذا oo ka baxsan hadalkaas oo mataqaana intee u socotaa intee tagay ka badan kuma weydiinay waxay dhahay nimanka kale marka raacdid siba nimanka ama madowga ama Asianka waxa laga yaabaa inuu ku weydiiyo noloshaada privacy-gaada
gurigaa degan tahay kaligaa maa degan tahay marka waxay dhahday intaa saaran tahay cabsiyaa dareemay mataqaanaa iyo arrimo badan oo aanan rabin inaan meeshaan ka sheego waxay dhahday qaarkood iyagoo xaasas leh markaa weysid waxay kula hadlayaan inay mataqaana ku dareensiinayaan inay rabitaan iyo waxyaabo mataqaana laakiin waxay dhahday ninka Soomaaliga shaqadiisu qabsana meesha rabto ka soo qaada meesha u socoto ku geynaa thank you very much waana socona that's why dad badan ay u jecel yihiin mataqaana dadka Soomaalida. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.